Assalaamu calaykum. Waxaad ka ogtahay dalalka adduunka ka jira qaybtii labaad. Kenya waa waddan ku yaala bariga Afrika. Guud ahaan badka ugu fadhiya waa 580,367 kiiloomitir laba jibaaran. Kenya waa dalka 48aad ee ugu badka weyn adduunka. Waxaa ku nool dad ka badan 47 milyan oo qof. Waa tirakoobkii la sameeyey 2019. Kenya waa dalka 29aad ee ugu dadka badan adduunka. Caasimadda Kenya iyo magaalada ugu weyn waa Nairobi, halka magaalada ugu da'da weyn iyo caasimadda koowaad ay tahay magaalada xeebta ah Mombasa. Magaalada Kisumu waa magaalada saddexaad ee ugu weyn, sidoo kalena leh deked ku taala harada Victoria. Magaalooyinka kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah Nakuru iyo Eldoret. Laga bilaabo 2020, Kenya waa waddanka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan Afrikada Saxaraha ka hooseysa. Kenya waxay xal la wadaagtaa dalal badan oo ay ka mid yihiin Koonfurta Suudaan, Waqooyiga Itoobiya, Soomaaliya, Uganda, Tansaaniya iyo Badweynta Hindiya koonfur bari ka xigta. Kenya juqraafi ahaan cimiladeeda iyo dadkeedu aad bay u kala badan yihiin, laga soo bilaabo buuraha qabowga leh ee barafku daboolan yahay sida Basin iyo Nelion oo ku yaala buurta Kenya. Sidoo kale waxay leedahay kaymo aad u ballaaran oo ku xeeran. Kala duwanaanshaha duurjoogta Kenya ayaa sumcad caalami ah ka kasbatay dalxiisayaasha, gaar ahaan xayawaanada naasleyda ah. Kenya hadda waxay leedahay 2 saxaro loo yaqaano lamadegaanka Chalbi iyo lamadegaanka Nyeri. Lamadegaanka Chalbi waxaa laga helaa gobolka Marsabit, halka lamadegaanka Nyeri laga helo gobolka Kajiado.